dadka mas'uuliyiinta dalkan ka ahaa beriga laba nooc oo khalad ay galeen kuwa khalad waxay galeen inay negligent afka qalad waxa lagu yiraahdo ay sameeyeen oo ay sahalsadeen dhaxalka ummadda Soomaaliyeed ay leedahay ee malaayiin sano ka hor ay lahayd malaayiin sano kala soo socotana ay lahaan doonto in ay dayalsadeen oo aanay siinin muhiimadii ay lahayd kuwa kalena waxa lagu tuhmi karaa inay dana gaar awgeed ay u bixiyeen dhulkaas oo ay ahayd wax qiimaha dhulkaas uu leeyahay noo gooy karaa inaanay jirin wasiir baan ahay golo wasiiraan ka tirsanahay prime minister kiin hor fadhiyo Umar Abdirashiid Cali Sharma arke amarkiisa aan ku saxiixay aniga heshiiska marka cawada asaga inuu hor taagan heshiiskaas wixii ku saabsan iyo waxa ka qabtiin waxaan rajaynayaa ra'iisul wasaaraha asaga ka jawaabi doona Kenya وهم واحد وعصمت هاي إن أي خلطوا حدود كبد السعودية كينيا وحي رنتي فايلش خصوصا سي international law الوزراء عايزين جوابي وزيرك عايزين جوابي أنا قاعد أبغى أركن بقى وقال لو صحيح أنا ما أركن ما لو صحيح أنا ما أوجي وإحنا كم أوجي أدي في عنت هاي دتك عسكري أدي حماتنا أدي عسكري waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego waxaan nasiib darro kuwa aan ka hadlayay ee na dayacay shalay si غير mas'uulnimo u sahladay badeen inay baxdo ama dana gaar ka qaatay ayaa maanta jaakadaha u soo xirtay haddana xukunka dalka inay qabtaan qofka Soomaali oo aqli leh oo dadnimo ay ku jirtaa waa gara kara waxa ka dhalan kara dadka noocaas mas'uuliyadooda iyo garashadooda noocaas ay tahay markay talada dalka qabtaan waxay u horseedi karaan dalkan